madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay qaraarkii golaha shacabka ay u soo gudbiyeen ee ku aadanaa matalaadda gobolka Banaadir uu ku yeelanayo golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa cuskaday meelmarinta go'aanka golaha shacabka ee 27 bishii Juun 2020 geedi socodka dheer ee loo soo maray raadinta matalaadda gobolka Banaadir uu ku yeeshay aqalka sare. cabashooyinka ay shacabka gobolka Banaadir ka muujiyeen matalaad la'aanta muddo xileedka aqalka sare ee baarlamaanka tobnaad oo ah xuquuq asaasi ah oo dastuurka ku meel gaarka uu siiyay si la mid ah gobolada kale ee dalka iyo codsiyada isdaba joogga ah ee hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed. sidaas daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu xeeriyay in gobolka Banaadir uu ku yeesho baarlamaanka 11aad 13 kursi. madaxweyne Farmaajo ayaa faray golaha xukuumadda inay xeeriyaan habraac u gaar ah matalaadda gobolka Banaadir oo ay ka muuqato isku dheelitirnaan bulshada Soomaaliyeed ah iyadoo oo ay qadarin gaar ahna laga siinayo deegaanada caasimadda ah lana fuliyo inta lagu guda jiro doorashada aqalka sare ee baarlamaanka 11aad. saxiixa madaxweyne Farmaajo ee xubnahan ka kooban 13 laga siiyay aqalka sare gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya xilli muddo kooban uu ka harsan yahay muddo xileedka madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. عبدالغني بوسس بي سي أنا وسوحان استعمالها سمتل السجو مو استعماله سمتل أنا وين بدل ما سمتل كهذا الكراه بس السجو السدا نص من كراية ورما هي رمية ورنتي أفر اللي باتنك السعادة وحن كهذا لبكون إيشان بقول أوشيلن هو بلاش بشي أردنا وحن كهذا $5 أو كلية عادي ما هو محل مرور يقول شيء قوي فكر